muruqina malo dulka mira ku beero muruqina malo dulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaaga isbedelka inay ku talaafadeen dhalinteena reer Soomaaliya ayaa haboorka ka shaqo hadaynu soo qaadano mid kamid ah shaqooyinka ugu la yaabka badan ee lagu hadalhaynta badan yahay Soomaaliya waxa kamid ah dhalinyaro ka kooban dhakhaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad oo adeeg caafimaad hore loo ku fidiyay magaalada Hargeysa barnaamijkaas oo faahfaahsan waxaan haysan kariyay Ismaaciil waa koox dhalinyaro ah oo ka kooban dhakhaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad kuwaas oo adeegyo caafimaad oo kala duwan ka fuliya magaalada Hargeysa kooxda mihnadayaasha caafimaadka ayaa waxay dadka ugu tagaan guryahooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin iyagoo u fulinaya adeegyada caafimaad ay u baahin hadba cid u adeegayaan Muxyidiin Abdiraxmaan Xasan waa gudoomiyaha ururka caafimaad oo lagu magacaabo Mohko wuxuu sharaxayaa sida ay u shaqeeyaan ka urur ahaan iyo adeegyada caafimaad ee bixiyaan barnaamijkani nidaamka uu shaqeeyaa waxa weeyaan nidaamka uu shaqeeyaan barnaamijyada caafimaadka ee wareega ee dunida ka aasaasan waxaan sameynaa qofka barnaamij caafimaadka waxaan ku gaarsiinaa isagoo gurigiisa jooga qofka wixii adeeg caafimaad ee isbitaalka ka xidhmi lahaana waxa lagu soo qabanayaa gurigiisa isagoo qofku jooga hadii ay dhakhtar noqoto iyo hadii ay noqoto adeeg caafimaad oo kale waxa qofka uu ku helayaa isagoo macnaha xafiiskiisa goobtiisa shaqo iskuulka ilmaha yar uu joogo gurigiisa dhamaan yani position kasto qofku joogo halkaas ayaan ku gaarsiinaa adeegyada caafimaadeen runtii horta inta ugu badan u fidina waxa kamida in mesela oo kale qofku dhakhtar u baahan in dhakhtarkii aan guriga ku geyno on macnaha in qofkii dhakhtarkii guriga ku dhaxelo waxa sidoo kale aan sameeynaa waxyaabaha asaasiga ah ee isbitaalka ku xiran haday noqoto dhaymaha nabarada oo kale hadii ay noqoto macnaha qaadista shaybaadhiyada ee cusub hadii ay noqoto macnaha caruurta oo kale xalaaleyntooda iyagana waan ku fulinaa adeega caafimaad fikir kasto ka yimaada aadamaha waxa jirta sabab keentay in la curiyo ama la hidiso hadaba waa maxay sababta dhalinyarada ku kaliftay in adeeg caafimaad ka bilaabaan magaalada Hargeysa markii ugu horeysay horta barnaamijkan waxaan ugu kalifay markii aan aragnay baahiyaha caafimaad ee wadanka jira iyo dabcan isbitaaladii adeeg bixinayaan oo dabcan qaali ah iyo baahidii oo jirta oo badan markii labadaas shay isku soo baxeen ayaan aragnay in halkan fursad badan oo barnaamij yani laga qabtaa ay banaanta ay haboon tahay marka runtii anagu markii hore waxaan ugu talagalnay in barnaamijkan in dadka danyarta ah heleen macnaha inay adeeg caafimaad oo ticketkii dhakhtarka oo kale lagu galayay inay iska bixiyaan iyo dadka danyarta sidoo kale heleen yani $30 ay ugu jirayaan qol isbitaal private ah hadana ayagu adeeg yar fudud u baahan ayaan isnidhiyo ka dhalinyaro ahaan maadaama idinku wadankii wax u barateen dadkii wadanka u soo baxay aad tihiin dhamaantayna aan ka shaqeysano institutionno private ah oo macnaha aan isku filanahay ayaan nidhi waqtiyadeena firaaqada ah sidee baynu bulshadeeni aqoontaynu baranay ugu celin karaynaa muddadii ay dhalinyaradan ay shaqeynayeen waxa jira dad ka faa'iideystay adeegyada caafimaad ay bixiyaan ka urur ahaan haddaba sidee dadku u arkaan adeegyada caafimaad ay bixinayaan kooxdan xirfadlayaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirta iskugu jirta runtii cajiib iga ahayd waxaan maqli jiray shaah wareega wax kale wareega cunto wareegta taksiyaal wareego kugu imanaya qalkaaga oo serviceka kugu keenaya laakiin maskaxdayda inamay ku soo wareegin business ama organization ka shaqeeya ee caafimaad wareegaya runtii waan arkay dad badan oo ehelkayga way ku dhacday aan dhayligu kaxayn jiray timekayga la isku rasmi jiray jaamacadda waqtigayga la isku rasmi jiray wallahi way jirtay runtii waa organization aan aad ugu bogay runtii aan jeclaan lahaana in la badiyo branches badan oo ku yeesho xataa gobolada hadduu tegi karayo hooyo oo caafimaadkeeda in badan la tacaalaynayo xagga macaanka aad saameeyay ayaan ugu yeedhay alxamdulillah si fiican bay daweeyeen si fiican bay daweyn ku qaatay in kana fiicantay waa wax aad u fiican u soo dhaweey mar haddii gurigii lagu imanayo oo aanad qofkii aad u qaadayna tacab la gelin gurigii inta lagu imaado dhakhtarkii lagu keenayo oo si fiican qofka hawshiisa lagu dhameeyo wallahi wax aad u wanaagsan
gudoomiyaha ururkan caafimaad waxa uu sheegay in ay ka ururaan rajeynaya in waqti dhow gaadhaan dhammaan gobolada dalka oo dhan si ay uga fuliyaan adeegan caafimaad ee noocan oo kale ee hadda ka fuliyaan magaalada caasimadda Hargeysa ka urur ahaan hiigsigeegu insha Allah horta waxa weeyaan inaan noqono the biggest team in whole Somali people يعني teamka ugu weyn macnaha mobile ah qiiga Soomaaliyeed oo dhan ka jira gaar ahaan Somaliland qorshahayga koobaad waxa weyn insha Allah 2018 bisha 6aad wixii ka soo horeeya inaan ka hirgelino gobolada ugu waaweyn 6 gobol ee Somaliland tiimam macnaha annaka nala shaqeeya oo iyaguna sidaas oo kale gobol kasta mobile adeeg ah ka bixiya kooxdan waa koox dhalinyaro oo ka kooban dhakhaatiir iyo xirfadayaal caafimaad oo adeeg caafimaad oo weli magaalada Hargeysa lagu arag ka fuliya Sakariya Ismaaciil Ogaga News magaalada Hargeysa dawadayaal haddana inta qodobka ka soo noqono waxaan filayaa in aad idin xiiso geliyo qodobka xiga waxa noqon doona weliga ma maqashay goomistaha wareega amba banjarlaha wareega ka bogasho wacan hal abuurka fikir cusub waa mid ka mid ah halbeega lagu cabiro guulaha nolosha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland markii ugu horeysay wiil dhalinyaro ayaa wuxuu ka hirgeliyay fikir ganacsi oo cusub oo hore aan uga jiri magaalada Hargeysa kaas oo ah inay magaaladu yeelato banjarlaha wareega oo gaadiidka ugu tagaya goob kasta oo ay ku banjaraan markay la soo xiriiraan kadib Ahmed Ibrahim Qalib waa mulkiilaha banjarlaha wareega waxa uu sheegay in meel kasta oo kamid ah gudaha magaalada Hargeysa iyo waliba duleedka magaalada ugu tago gaadiidleyda adeegaas u baahda markay la soo xiriiraan waxay ugu dhaliyay baahida Soomaaliland gawaaridooda oo aad iyo aad u badan waxa dhaafaa oo wax caawimaada iyo wax magaranaysa mas'uuliyada aan wadooyinkiisa saarin dhaxdooda ku banjaraya waxa laga yaabaa inuu gaariga kaliya banjaray 300 oo gaari xalibo waxaan ka caawiyaa waliba qaarka telefoonada haya aniga tantayda ayaan u tagaa oo ka caawiyaa oo u tagaa halka ay taagan yihiin waxaan weydiiyaa marka ugu horeysa baahida gaariga nooc uu yahay waxa ka xun taayirku inta tiro uu leeyahay marka taayirka aan hayo iyo halka uu joogo marka uu sheego oo u tagaa waan qabtaa waxa uu iyadoo dhalinyaro fara badan ka cawdaan inaanay Soomaaliland ka banaaneen fursado shaqo oo ay u hayaan wadamada qaaradda Yurub iyo dunida inteeda kale haddana taas bedelkeeda waxa jira dhalinyaro la yimaada hal abuur iyo fikir cusub oo wadanka hore aan uga jirin oo kamid yahay Ahmed Ibrahim Qalib mulkiilaha banjarlaha wareega Sakariya Ismaaciil Ogaga News magaalada Hargeysa dawadayaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena ku dhaafi doona wuxuu noqon doona wiilkii mid dalka Mareykanka oo shaqo la yaab leh ka fuliyay magaalada Hargeysa shaqadaas oo aad la yaabi doonto daawasho wacan heerka shaqo la'aanta ayaa la sheegay inuu Soomaaliland meel sare ka taagan yahay waxa inta badan dhalinyarada Soomaaliland ay cabasho ka muujiyeen helitaanka shaqooyinka dalka gudihiisa dhalinyarada Soomaaliland ayaa inta badan iyagu u taariiba qaaradaha Yurub iyo Ameerika iyagoo ku handacoonaya inaanay wadanka aanay ka jirin shaqo isla markaana shaqooyinka raadsanaya dalalka ay u taariibaan taasna bedelkeeda waxa jira dhalinyaro iyagu ka yimaada dalka dibadiisa oo yimaada gudaha dalka iyagoo hal abuur cusub iyo shaqooyin kala duwan la yimaada dalka isla markaana sheegay in dalka ka jiraan fursado shaqo badan meeshan joogay gobolka Minnesota shaqo waan hayay shaqo la'aan ma ahayn wali shaqo fiican baan iska hayay laakiin qof kale markaad u shaqeynaysid wadankaaga aad joogin maxaas Irbal Xuseen oo adoo hadda aan Mareykanka aad joogaan ka sameynaya $4,000 camal waana meesha camal ka sameeyay $500 bishii
xuseen ayaa waxa uu magaalada Hargeysa kaga dhex shaqaysta shaqo noqotay mid indhaha dadka soo jiidatay isla markaana dad badan su'aal iska weydiiyaan hal-abuurka wiilkan dhalinyarada waa arrin aad iyo aad loogu farxo ninkani wuxuu ka yimid shalay sheegay waddanka Mareykanka shaqadaas uu markaa waddankii uu ka sameeyay dhalinyarteena waa kuwa tahriib bay u yaacayaan oo Yurub bay ku yaacayaan dadkii Yurub joogay kuwii ku dhashay wax ka bartayna waa kuwa maanta waddankii waa ka sahal la wareegaya intii aan garab taagnaa wax laga iibsaday sah aad u badan baa laga iibsaday lacag wax laga yaabaa gelinka hore khaliya inuu shaqeeyo lacag aanay kuwa tahriibay bil aanay Yurub ka helin marka waxaan isagana ku bogaadinayaa dadka dhalinyarada waxaan leeyahay waa bal waddanka shaqo way taalaayeen bal indhihiina furo sida ina kala bal shaqo soo saaro shaqo haddaba daawadayaal inta barnaamijkan ku guda jirno waxaan kaga jawaabi doonaa su'aasha dalka mashaqo la'aan ayaa ka jirta mise hal abuur la'aan waxaan inta badan sheekadeena barnaamijka ku soo qaadan doonaa Xuseen Ibraahim Guuleed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka yimid dalka Mareykanka isla markaana hadda ka shaqeeya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxa uu Xuseen magaalada Hargeysa ku dhex iibiyaa shaax isagoo gudaha magaalada kula dhex wareega haan amba weel u qaada shaaxa waxa uu ka sheekeynayaa sababaha ku kalifay inuu shaqada noocan ka bilaabo gudaha dalka isagoo ah nin dhalinyaro oo wax bartay isla markaana shaqo ku haystay dalka Mareykanka markay maqashay wiilkeedii ee kala soo shaqeynayay iskuulka iyo digriga waxa oo dhan inuu qaato Hargeysa buu joogaa shaah buu suuqa ka iibinayay iyada xataa mashruuca ilmo jirin laakiin anigu waan ogaa wax soconay inuu yahay iyo xaggan meeshan joogay gobolka Minnesota shaqo waan hayay shaqo la'aan ma ahayn wali shaqo fiican baan iska hayay maxaan ahaa health insurance baan iibinayay health insurance bal maxaa lagu yiraahdaa Soomaaliya aymis camal baan iibinayay program waxaan ku jirnay Obama Care inta dad badan ay yaqaanaan Obama waa qanun cusub oo uu soo saaray oo qof walba Mareykanka jooga inuu qasab inuu iibsado insurance marka taaban ka qayb galay Soomaalida oo Minnesota joogtay baa insurance ka iibinayay daawadayaal xagga kamarada waxay kala qaybtay injineer Rusame Maxamed Bakar habeentiisa isku dabirkiisa kaliya Ismaaciil Xasan iyo aniga Cabdi Rasaaq Darseed saas iyo kulan dambe xiiso leh